marxaladaha uurka. Uurku waxa uu ka kooban yahay 9 bil ama 39 isbuuc, waxaana loo qaybiyaa 3 marxaladood. Marxaladda koowaad ee uurka waxa ay bilaabmataa marka ay kulmaan ugxanta hooyada iyo isbeermada aabaha, waana muddada u dhaxaysa isbuuca koowaad ilaa isbuuca 12aad. waxaa dhaco isbeddel hormoonada ah. waxyaalaha ugu caansan marxaladda koowaad waxaa loo yaqaanaa jiro subaxeed, waxaana lagu arkaa hooyada matag iyo lalabo xilliyada subaxii, waana xilliga ay u yaqaanaan dadkeena walaca. dhinaca kale, isbuuca koowaad ilaa isbuuca 4aad waxaa sameysmo bacriminta dheecaanka aabanimada iyo ugxanta hooyanimada lagu mideeyo. markaa kadib waxaa sameysmo waxa loo yaqaano uurjiif, waxa uuna ku dhagaa derbiga ilmagaleenka, waxaana dhaco isbeddel hormoonada marka uu ku dhagaayo derbiga ilmagaleenka. isbuuca 5aad ilaa isbuuca 7aad ee uurka waxaa sare u kaca hormoonka caanka ku ah uurka marka la soo gaabiyo loo yaqaano HCG, waxaana sameysmo wadnaha cunuga iyo maqaarka kore ee maskaxda iyo lafdhabarta. sidoo kale waxyaalaha sameysmo waxaa ka mid ah ibida cunuga, lafaha cunuga iyo isu soo dhawaanshaha tubooyinka neerfaha. sidoo kale waxaa sameysmo maskaxda iyo lafdhabartaba. sidoo kale waxaa sameysmo adimaha cunuga iyo wajiga cunuga. isbuuca 8aad ilaa isbuuca 12aad ahna muddada u dambeyso marxaladda koowaad waxaa sameysmo faraha cunuga, waxaana hormara sameysmanka adimaha cunuga. sidoo kale waxyaalaha sameysmo waxaa ka mid ah daboolka isha, dhagaha cunuga iyo luqunta cunuga. waxyaalaha kale oo sameysmo waxaa ka mid ah xudunta ayadoo isku xireyso caloosha cunuga iyo ibida. marxaladda labaad waxa ay bilaabataa isbuuca 13aad ilaa isbuuca 25aad. aan isla fiirino horumarka cunuga ku jira ilmagaleenka. isbuuca 13aad ilaa isbuuca 16aad waxaa gebi ahaanba dhammeysma sameysmanka cunuga, waxaana bilaabma dhaqdhaqaaqa cunuga ee hooyada ka dareenta caloosha dhexdeeda. waxaa la aqoonsan karaa jinsiga cunuga, rag iyo dumar waxa uu yahay. sidoo kale waxaa weynaado lafaha cunuga. isbuuca 18aad ilaa isbuuca 25aad waxaa sare u kaca korniinka cunuga iyo adkaanshaha lafaha iyo qaab dhismeedka cunuga. waxaana halkaas oga baxaynaa marxaladdii labaad ee uurka. marxaladda saddexaad waxa ay bilaabmataa isbuuca 16aad ilaa isbuuca 39aad. marxaladdan waxa uu cunuga dhex dabaashaa ilmagaleenka, waxa uuna isku diyaarinayaa inuu soo baxo oo waqtigiisa ayaa soo gabagaba ah, waxaana kor u kaco miisaanka cunuga iyo shaqaynta hab dhismeedka cunuga. mahadsanidin.